اللي 1 مليون وفاتين انت المناعة أفر شنال سميسيني ومناعة من جارسيني صدح بقولكم بقول إيو ضدواتكم بقول إيو صدقكم انت شنال هذا صدق جارسيني سبسكرايبر ده انت أصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن داوديال meel kasta oo adduunka ka joogtaan halkan aan naga daawanaysaan oo warbaahinta Burhan Channel Facebook iyo waliba YouTube inta uu socdo barnaamijkeena caawa ama maanta ee Somali Celebrity News qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah uguna waaweyn dagaalkii u dhaxeeyay Dirisle Cabdi iyo King CK oo mar labaad dib baraha bulshada uga bilowday Dirisle Cabdi ayaa garbihiisa waxa taagan Samiixa Khaliil qurux ku dhiigle iyo waliba Marish Beauty halka King CK-na uusan haysan xilligan hadda ah wax garab ah ogow dagaalka waxa uu ka bilowday waa kuma shakhsiga hor gaari doona 1 milyanka waxaan idin hayaa cadeymo sax ah ee ah in dagaalkoodu mar labaad uu baraha bulshada ka bilowday muuqaalka si degan u daawada fadlan hadii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeenu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa marka hore in aad muuqaalka aad like noo saartaan aadna ka mid noqotaan kumanaanka kun ee ku xiran baraheena YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga anigu waa Burhan Cali halkaana waa Burhan Channel sida aad horeyba ula wada socotaan qaarkiin waxa jiray 4 sano muddo hadda aan ku qiyaasayo in uu baraha bulshada ka dhex qarxay dagaal culus oo u dhaxeeyay King CK iyo waliba Dirisle Cabdi xilligaas YouTuberada Soomaaliyeed aad bay u yaraayeen oo markii laga soo tago kuwa heesaha soo galiya waxa jiray kaliya dhowr shakhsi oo aan anigu ku jiray ma jirin waxaan hadda isdaba yaacaya ee aan la ogeyn halka ay u socdaan iyo qorshaha ay u soo galeen dagaalkaas oo dhowr sano socday ayaa waxa ay isku adeegsadeen hobabka noociisa kala duwan ee baraha bulshada la iskaga rido heer waxay gaareen ay iska report gareeyaan qof hadii muuqaalkiisa qofka kale uu reaction ka soo bixiyo ma jirin cid dhex gashay walow markii dambe sida aan xogta ku helaynaba ay jirtay shakhsiyaad haddeer magacooda aan idin sheegin oo arinta dajiyay xilligaasna heshiis iyo waan iscaafinay kuma kala bixin kaliya kala aamusa ayaa la yiri intaasi kadib waxa jirtay in bilihii ugu dambeeyay labadoodaba ay ku kala hormarayeen waa kuma shakhsiga hor gaari doona 1 milyanka King CK ayaa 2 bilood ka hor waxa uu ka degay caasimada dalka Turkiga ee Istanbul halkaasina waxa uu kula kulmay oo waliba xiriir branki ahaa oo jacayl oo dherbiri ay ku jilaayeen asaga iyo waliba Samara Queen King CK ayaa Samara waxa uu gaarsiiyay 1 milyan oo followers ah oo waliba ah dhanka TikTok-ga intaasi kadib Dirisle Cabdi ayaa asagana waxa uu sameeyay in saldhig uu ka dhigto dalka Kenya ilaa uu 1 milyanka uu ka gaarayo maxaa yeelay awal muuqaaladiisa kaliya waxa ay ku saabsanaayeen in qofkii ka soo hadla iyo waliba reaction uu ka bixiyo muuqaalada maalintaas baraha bulshada yaalay laakiin hadda waxa uu u bedelay systemkii oo dhan in asaga iyo Samiixa ay maalin walba bartooda YouTube-ka ay soo galiyaan muuqaalo aan caadi ahayn haba u badnaadaane kuwa surprise-ka iyo prankiga sidoo kale Dirisle Cabdi markii laga soo tago Samiixa oo la isku xanto in ay isjecel yihiin waxa garbihiisa taagan Marish Beauty iyo waliba qurux ku dhiigle sidaasna waxa ay ku noqdeen hal team hal meel ka soo wada jeeda hadii aan u soo wareegno dhanka King CK ma jirto markii laga soo tago Samara Queen cid ilaa ay hadda uu garab ka helay sheekadaasina ayaa waxa loo badinayaa in ay tahay in King CK uu soo jecleen in dad muuqaalo kale uu la sameeyo waana sababta keentay in maanta asaga iyo Dirisle Cabdi ay kala duwanaadaan marka loo fiiriyo dhanka baraha bulshada oo ah in Dirisle ay team ag taagan yihiin wax walbana oo la diyaara laakiin CK uusan haysan intaas markii laga soo tago waxa jirtay muuqaalo maalmahan baraha bulshada ay labadooda iskaga tuurayeen kaliya shakhsiyaad anigu aan ku jiro ayaa fahansanaa in labadooda dagaalkoodu uu dib u qarxay laakiin maanta ama caawa waxaan jeclaystay in aan idin la wadaago waliba anigoo cadeemo rasmi ah inii keenaya cadeynta koowaad ee ah in labadooda uu dagaal ka dhex bilowday waxa uu yahay uguna weyn in Instagram-ka ay iskala laabteen followgii sababtaasina ayaa waxa ay tahay dagaalka labadooda ka dhex qarxay mar labaad naceeb kale iskuma hayaan laakiin nin walbaba wuxuu rabaa
shaqsigii horgaari lahaa 1 milyan oo subscribe ah waana sababta keentayba in dagaalkoodu mar kale uu qaraxo wallow dadka qaar oo aan anigu ku jiro ay aaminsan yihiinba in kaliya xitaa ay sheekadu siyaasad ahaan noqon karto oo ay rabaan in baraha bulshada lagu hadalhayo sidaasna ay ku gaaraan 1 milyan oo subscribe ah laakiin caanooley waxba iskuma ogola hore ayaa loo yiri sida aan idin sheegayba cadeynta koowaad waxa ay tahay in Instagram-ka ay followgi iskala laabteen Dirisla Cabdi oo haddeertan idin muuqda Instagram-kiisa ayaa 2 qof kaliya follow gareeyay waa asaga oo ciwaan kale leh iyo Sameexa Qaliil halka CK-na uu follow gareeyay ilaa 200 oo shakhsi Dirislana uusan ku jirin waxaa jirtay sanad iyo xoogaa ka hor in ay hal muuqaal isla soo duubeen ayna yiraahdeen waan iscafinay sidaasna ay follow isku dhaheen laakiin maanta sheekadii way isku soo xirantay Dirisla Cabdi iyo Kinga CK muuqaaladooda ay baraha bulshada iskaga tutuurayeen bal wax yar aan daawano waa kana Dirisla Cabdi oo ka hadlaya waxa uu ka aaminsan yahay in 1 milyan oo followers ah ama subscribe ah uu gaaro 1 milyan oo faanteen horta fiidiyoyaal badan ay ka dhaxlaan fahamsaa haddii aad lambar ku xisaabsantid oo markaad waalan lahayd maana lambar ku xisaabsantid lambar kuma dhamaado milyan hadaa gaadhid bari 2 milyan baad rabtaa 2 milyan hadaa gaadhid bari 3 milyan baad rabtaa 3 milyan hadaa gaadhid bari 4 milyan baad rabtaa marka lambaradu dadka way waalan fahamtay maana haddii aad lambar ku xisaabsantid mar walba oo tiraahid lambarkaasaan rabaa maana waad ku waalan fahamtay ama dad maana doonay in 1 milyan gaaro maraan gaari lahayo maana sababta gaari lahayo waxa weeyaan intaan maana 4 channel sameeyay oo maana min gaarsiinay 300,000 170,000 intaan channeladaas oo dhan gaarsiinay subscriberada intaas la leeg maana aanu hal channel awood saari lahayo Dirisla Cabdi ma ku soo guri la marka muhiimadu lambarka ma muhiimadu waxa weeyaan halka ka taagan tahay dadka Soomaalida ee ku taageera maana ma fool xumaa dad 1 milyan gaadhay qurux badan tahay 1M oo meel ku qoran wax qurux badan qof walbana kulay iska reebi lahaa laakiinse midan fahma lambarada waa lagu waashaa ma baad maana dad lambar ku xisaabtid maanta oo stress ah qaaday ina raaxaysta ugu fiican adduunka mugta ina raaxaysta fiican ina lambar ku waalato ma fahmo marka 1 milyan oo gaarina xabna ugu dhin insha Allah oo gaarina laakiinse 1 milyan kaas haddaan doonayna ma kulina mar hore gaarno maana mar hore waa gaari lahayn sababtoo channeladiina oo aragtay ma umaleeyaa subscribers ku halkay marayaan haddaan channelada subscribers ku isku daro milyanaa waa dhaafina laakiinse maxaa la yiraahdaa 1 milyan ka yana ku waalan maana waan ka weynaa 1 milyan iyo waxaas ugu dambeyntiina yaad isleedahay 1 milyan oo subscribe uu horgaari karaa Dirisla Cabdi iyo waliba Kinga CK intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Somali Celebrity News fadlan haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalka aad like noo saarto aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran baraheena YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga waxaana idinkaga tegayaa sama iyo salaama